tani waa sheekada Aadam Ibraahim Aadam oo sanadkani ka soo dhex muuqday kumanaan kun oo arday ah oo ka qalin jabiyay jaamacadaha kala duwan ee dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho. Aadam ayaa ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah isagoo aan awoodin inuu isku taago adimadiisa sida muuqaalkan kaga muuqata, balse taasi kama hor istaagin inuu hiigsado hamigiisa. Aadam ayaa sanadkani ka dhabeeyay mid ka mid ah himilooyinkiisa fog gaar ahaan dhanka waxbarashadiisa, inkastoo ay soo mareen marxalado kala duwan oo adkaa. Aadam ayaa sheekadan waxa uu Caasimada TV iyo bulshadaba kula wadaagi doonaa waayihiisii nololeed iyo halgankii adkaa ee uu ka soo maray geedigiisii waxbarashada jaamacadda. aniga magacayga saddexan Aadam Ibraahim Aadan la yiraahdaa, hambaliyadana waa idinka godoomay. markan aniga heerka oo waxbarashadeed ko horta soo bilaabo muddo ma hadda maanta laga sheekeeyo lahaa wax oo soo koomaya maaha, marka laakiin waa soo gagaabinaynaa. aniga heerkayga horta dugsi sare maxaa dhameeyay 2008 ilaa hadda waxbarasho laan ahay oo waxbarasho jaamacad fursad uma helin. laakiin markii hadda oo 2018 bishii February jaamacaddan ku soo biiray, markan jaamacadda SIU heer Allah siiyo iyada kulli xibin weyn ah waxbarashadeed ka qaadatay oo maxaa waay heerka hadda maanta taaganahay Ilaahay soo gaarsay ka sokow. laakiin jaamacadda oo xog u doobatay intay oo heerkan gaaro oo maanta guushan oo Ilaahay ay gaarsay, laakiin ka sokow iyada ay gaarsiisay jaamacaddana aad iyo aad ugu mahadcelinaya. marka la eego noloshiisa gaarka ah, Aadam waa aabba dhalay hal cunug, sidoo kalena leh laba xaas sida uu inoo sheegay. noloshayda haddii ka hadlo aniga waxaa waaye laba xaas la ahay, waxaa waaye hal xaas hal cunug ii hayso hadda, tan kale weli wax ima dhalin. Maxamed Xuseen Tahliil oo ah macallin iyo xubin ka mid ah maamulka jaamacadda SIU ee sanadkani Aadam uu ka qalin jabiyay ayaa waxa uu Caasimada TV uga waramaya hanaankiisii waxbarashada ee Aadam, qaabkii uu soo xaadiri jiray fasalka iyo waxqabadyadiisii ardaynimo ee 4 sano ee jaamacadda uu wax ka baranayay. sidoo kale waxa uu macallin Tahliil sheegay in Aadam ay jaamacadda fursad u siisay inuu ka mid noqdo shaqaalaheeda mushaariga ah si uu u dabaro baahiyihiisa nololeed. magacaygu waa Maxamed Xuseen Tahliil, maamulka xafiiska Public Relations ka jaamacadda. marka koobaad waxaan u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala si nabad ah Aadam Ibraahim Aadam ugu soo dhameeyay waxbarashadiisii heerka jaamacadeed. maalin aan fogeyn ayay ahayd maalintii uu bilaabay Aadam. runtii Aadam isaga oo ah ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa haddana haddii la yiraahdo imtixaanka xilliyada la galayo dhibcaha ardaydu ay keensadaan imaanshaha iyo waqtiga dadaalka waxbarashada diyaarinta buuggii iyo hawlihii iyo dhan walbaba ayaanu ka liidanay. marka awooddu ma aha qofku inuu maaragtay la yiraahdo lixaadka ayaa dhiman, laakiin awoodaha dadka Ilaahay siiyay aad bay u fara badan yihiin. awoodihiisa ayuu maaragtay ka faa'iideystay, maantana wuu gaaray runtii libintii iyo guushii iyo hamigiisa halkii uu ahaa. qaar ka mid ah saaxiibadiisii fasalka ay soo wada dhigan jireen Aadam muddadii 4 sano ahayd ee jaamacadda ayaa iyaguna ka sheekeynaya dadaaladii Aadam, iyagoo u qiray inuu ahaa arday kaga wanaagsanaa dhammaanba ardayda kale waxbarashada, gaar ahaan dhanka soo xaadirtaanka, ka jawaabista laylisyada iyo firfircoonidiisa. sidoo kalena waxa ay ugu hambaliyeeyeen qalin jabintiisa ee sanadkan. walaalkeen Aadan ayaa maanta waxaan la qaybsanaynaa farxaddaas oo ka soo bilaabatay 2017 ilaa hadda oo 2021 ah, oon aad ugu faraxsanahay inaan 4 sano galaas soo wada fadhiisanay. weliba aniga waxaa noo dheer galaas inaan soo wada fadhiisano in aan isku guruub ahayn oo aan project galaas book aan soo diyaarinay kaasoo ku saabsan qalin jabinteena iyo in oo muujinayso inaan jaamacadda dhameynay oo shahaadadiina aan ku qaadanayno. naafanimadu inkasta oo ay adkeyn karto nolosha, haddana ma ahan mid nusqaan ka dhigi karta ama joojin karta hayaanka dheer ee nolosha aadanaha iyo hamiga qof kasta uu higsanayo. waxayna sheekada Aadam tusaale u tahay in qofkii dadaala una adkaysta uu hamigiisa ka dhabayn karo. Shamiis Xasan Haruun, Caasimada TV, Muqdisho.